السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قروح بدن كسر هذا فيديو عصب أصحابتي عصب سود هذا أصحابتي رجعتوا مع سنتين شاهي رفضت أو المهنا أوفي عن شاه وشاهي عيالك شاهي هرجبك وشاهي عافيماتك هاي المها غير علين تهسين اللي بعتفر بدني وجيستا قاصة المها هذا لبي طبعا سنة هدي كيريهين شاه ومفيعنا أما علين جدودا ومفيعنا المها إن شاء الله كإلالي وحيابها إسكينكا واستعماله المها مركوكر قليل قبو أم nabro ilmaha yar hadduu kasoo baxo laba shay oo fudud oo guri walba laga helayo oo maasha Allah ilmaha u fiican oo faa'iido fara badan u leh insha Allah intaas aan jeclaystay inaan ila wadaago hadda shaahi waxyaabaha aan ka sameyn doono waa dhir waa heel waa qarfe waa dhagyare filfil dhammaan wax aad tumaysid male maadaama ciyaal ay isticmaalayaan lama tumaayo kuleel biyo kuleel lagu dari doonaa insha Allah waxaan kaloo isticmaalayaa huruud qoyan hadda helaysid maasha Allah way kasii fiican tahay laakiin hadda midaan oo boodarka ama diyaarsana ii tiilay ayadaas isticmaalay mid qoyan hadda isticmaalaysid maasha Allah sanjabiilka qoyan oo kale waa ku darsan kartaa laakiin ilmo markaa siinaysid mar walba waxyaabaha kulul ka ilaali shahan sida marka loo diyaariyo waxaa la siin karaa hal sano wixii ka weyn ilmahaaga sanad hadduu ka yar yahay oo hergab uu kaa qabo insha Allah si fiican waxaa u sameysaa inaad siisid naaska si fiican u nuuji masaajna u samee insha Allah intaasaa ku filan laakiin hal sano hadduu jiro liimacaantana waa ogtihiin fitamiin C qani ku tahay looma gaaro caburka caabuqyada waxaasoo dhan way u fiican tahay ilmahaada maalin walba joogto inuu u helo qof walba bini aadan ay u wanaagsan tahay maalin walba fruitka joogtada in loo helo oo ilmahaaga inaad siistid shaahan haddaa baratid adiga naftaada u roon ilmahaaga u roon biliis an biliis ilmaha laga daayo caleenta gaduudan la siinaayo uma fiicno waxyaabo fara badan oo xanuuna ilmaha u keentaa insha Allah هذا موضوع الشاه إن كسر هلا جعشين فيديو قاس إن شاء الله كسر سمين دونا هذا شاهي أو هرجب كأم شاهي عرورته سدانو ديار نوجيا هاي وقت بدن أباهن ملها dhirtan already biyo kulul ku daraysa waa dabooleysa ilaa uunka oo ka baxo waa ku daboolnaanaya malabaan ku darna wax sokoraha isticmaali hadii faa'iidiis ma sha Allah boqolkiiba boqol ina heshid hadaa jeceshahay hadii markaas aad jeceshahay dadka sokorto kala aad tahane waa isticmaali kartaa timira ku isticmaali kartaa ilmaha hadaa siinaysid ama furuuda u raacsiisan kartaa ana caruurta waxa u raacsiistay tufaax ma sha Allah ilmahaaga hirgab iyo ayaga way kala dheeraan doonaan hirgabka difaaco jirka hoos u dhigaa marka difaaca kor u qaadayaan shaahan waa shaah dhir oo maasha Allah oo cunug walba aad siisan kartid ilmaha sanad haduu ka yar yahay naaska ku filan iyo masaaj ina u sameeysid asxaabteeda quruxda badan marka soo diyaarsad qurux badan ku soo baxay koobkaas waxda hore aroorta siisanaysa 7 bariyo joogtay ama laafa ugu sameysan kartaa ilmahaaga maalin walbana waa siin kartaa insha Allah dhirtan faa'iido fitamiin C ka helayaan ilmaha wax dhibaatan uma geysan dhirtana ha ka tumin hadii dhirta oo dhan aad tuntid saaidna dhirta ilmaha u dareemayaan wayna dhibaysaa insha Allah kuleel keenaysa dhirta markii la tumo hadda waxa diyaarsanaynaa saliida waa saliid qumbo oo buyuur ah insha Allah waxa ku dareena waa dhageeraha wuxuu u fiican yahay caabuqyada ku dhacay iskiinka kor cunugaada haduu xasaasiyad qabo intaba insha Allah uu ka caawinaya ilmaha iskiinka oo isla eg oo qurux badan oo dhalaal ah oo ku sameynaya insha Allah laakiin ha karkarin dhageeraha saliida asiga marka si fiican isku kululaadaan kadib insha Allah dabka ka dansanay weel nadiif ah ku shubanay mar walba waa ka isticmaalay qaando ama weel yar oo ka shuban kartida ku isticmaalay insha Allah saliida diyaar ay noo tahay dhageera ayada marka falgalaan oo laakiin ay karkarin aan rabaa dhageeraha karkarin already waa ku dabooleysa saliido qandac ma sha Allah cunugaada waxa uu masaajeynaysa jirkiisa oo dhan hergab oo kala doo jiro sanko kale feeraha dhammaan jirka u marinay ilaa madaxa cunugaada u jeeda isla markii oo furmaya caburka sidaas la rabo inaad jirka ugu duugtid ama ugu masaajeysid masaajka ilmaha uu fiican yahay qaasatan ilmaha markay xasaasiyad qabaan ugu dadaal waxyaabaha dabiiciga insha Allah mar walba afar yaro fudud hooyo u diyaariyay ma sha Allah tabarakallah mar walba in hilib la isticmaalo ma qurux badno marka qaar khudaarta cagaaran isticmaal qaasatan waalidka ku sooman yahay oo gaas qabo insha Allah khudaarta cagaaran ugu dadaal mar walba muhiim ku yahay ina afur fudud u sameeysid waxyaabo jeceshaan aad taqaanid hooyo ma sha Allah dadka oo burka saaid inay ku afuraan jecel waay marka malawax ma sha Allah oo healthy lagu soo tuuro ee koostadeeda ee saladkeeda ku afurtay bili xurmada lagu jiro asxaabteeda aan ka faa'iideysano biriyo khamiis ah insha Allah qofkii soomi karo 3 biriyo xiriir qofkii sooma ma sha Allah tabarakallah marka aan ka wada faa'iideysano asxaabteeda quruxda badan waa afur yaro simple ah hooyo u diyaariyay malawaxane qof wuxuu qastaa qaab marka qaabka uu qastan hore waa soo galiya asxaabta quruxda badan insha Allah mar walba waxa fiican waxyaabihi oo markaas oo haysatid inaad ku qasatid caano ukun hadii labadaba aad jeclin hataa waa ka deyn kartaa mar walba laakiin malawax caafimaad isticmaal marka afurkii hooyo u diyaariyay kadib
nadaafada jikada markaa iska nadiifisid subaxdii waqti badanaa safe ku noqonayo adigna waxaa dareemaysaa firfircooni jikadaada markay nadiif tahay waxyaabaha stoofka aan ku nadiifin doono insha Allah waa niilo wadaagi doonaa shaamba isticmaali doonaa iyo bakinka cleaninka ama bakteeriyada uu ka qaadaa weelka dhalaalkiisa uu kusoo bixinayaa maasha Allah weelkana inuu ka daxaleysano ka caawinaya marka insha Allah waxa ku bilbilayo waa bakin asxaabtada quruxda badan bakinka marka isticmaalaysid aan wax walba oo ku nadiifin kartid isticmaal oo markaas ay haysatid asxaabtada quruxda badan dada xataa waxay isticmaalaan cusbada shiidan oo kala xataa waa isticmaali kartaa waxyaabaha cleaninka ka mid tahay marka wax aashata saaidna maan isticmaalin marka insha Allah gloves aan soo gashtay maadaama waqti badan ina nadiifiyaa rabaa marka cookerka ama stoofka kale marka haween walba gacanta aan marisid wuxuu ka caawinaa waqti fara badan inuu ku oolo waxa ku qurux badnaado subaxdina marka quraac diyaarinaysa waqti badan safe ku noqonayo habeenka muhiim waaye jikada in la iska nadiifiyo nadaafada jikada habeenkii hadaa nadiifisid jikadaada waxay noqonaysaa jiko oo cayaan lahayn adiga barbar waa kala riisanaysiin hawsha subaxdii way ku fududaanaysaa marka insha Allah asxaabtii quruxda badan hair nutrition goolkii maasha Allah waa gaarnay shuruudihii waa buuxinay asxaabtii quruxda badan jalanka kor iigu qaada insha Allah hooyo walbo aragtay waxaa rajeynayaa inay ii share gareyso subscribe iyo like iyo share waa xaqiin asxaabtii quruxda badan waxyaabo badan igu dhaga marka insha Allah kor ii qaada shuruudihii waa buuxiyay goolka rajeynayaa waa tagay alxamdulillah marka waa kaas asxaabtii quruxda badan hambali soo dhaha janalka kor u qaada hooyo walba aragto waxaan rajeynayaa inay hooyo walba gurigeeda ugu gaarsiiso wax yarba Allah ka dhigay insha Allah inay ka faa'iidaan waa nutrition baby and protein waa koritaanka caruurta waa kaabaha hooyada marka insha Allah ka faa'iideysta mar walba waxyaabo muhiimka ama nolol maalmeedka maalin walba la qabto insha Allah waa niila soo wadaagi doona wax walba muhiim u ah qaasatan cunooyinka caruurta waxyaabaha caafimaadka mar walba inaan ka hadlo ama xooga aan soo saaraa jeclahay mar walba إن شاء الله كانت إنني بوحي إذا كن إيسو دعية مرة بنقرب كي هذا إن إيسا من يسمى أوجا أصحابتي القروح ذبنا مرك إن شاء الله فيديو هاي والبأركتو وحنكرجينا يا إن شاء الله هدي هور سبسكرايب يوصار إن إيسارتو إيشير جرسو خيبتكم من تيجن الدعاء ذي أمانة ما شاء الله يرجلنا إيتا أصحابتي القروح ذبنا marka kaasa hambalyaani leeyahay dhamaan hair nutrition goolkeeni waa gaarnay shuruudihii waa buuxinay alxamdulillah marka kaasa asxaabteeda ku korka markaas soo nadiifsada soo dhadhalaalaya adigana waxaa dareemaysaa culeys fara badan inuu ka haray marka jikado nadiif ah ka baxdid laakiin jikado wasaq ee marka ka tagtid subaxdaada dhan xataa waxay noqonaysaa hawshaada waqti fara badan qaasatan hooyo ilmo yar haysato shaqeyso hadaa tahay insha Allah wuu ku caawinayaa waxyaabaha hooyooyinka shaqeeyo ama hooyooyinka qurbaha jooga insha Allah waxyaabo caawin kara ama hawsha waqti yar ku qabsan kartid in badan ka faa'iideysan kartid insha Allah janalka waa ka heli doontaan asxaabteeda quruxda badan haddana waxaan dhaqayaa qaybta alaabta marka mar walba waxaa fiican waxyaabaha bakteeriyada dilaayo inaa isticmaashid wax walba haysta isticmaali kartaa mar walba muhiim ku tahay waxyaabaha oo siinka lagu dhaqaayana way kala duwan yihiin waxaa isticmaali kartaa weelasha aashitada kiimikaalka loogu talagalay ama waxaa isticmaali kartaa ani waxaan isticmaalayo waa shaambo iyo bakin ama waxa ay haysatid insha Allah ku nadiifso mar walba gacantaada hadaa marisid meeshan biyo ku dhacaya alaaba ku dhaqaysa haday gacantaada u badneen wuxuu noqonayaa siinkaaga ama saxanka alaabta inuu haaro ka yeesho asigana uu bahdilmo alaabta xataa inaa ku dhaqdimo ku qabanayso marka insha Allah nadaafada muhiim ay noo tahay nadaafada waa iimaanka barkii asxaabta quruxda baan isku dhiirigelino hooyo walba sidee hoosh u qabsato hooyo nooc u qabsataa hawsha laakiin mar walba waxyaabaha hawsha ku fududeenayo ina isticmaashid sida agabyada loo isticmaalo in nadaafad ay ku gashid waxyaabaha ku fududeen karo ina shayga wasaq ka noqonin shayga mar walba gacantaada ina marisid muhiim waa insha Allah asxaabteeda quruxda badan marka kaasa videogan insha Allah afurkii jikada waxyaabaha aan nadiifinayo ama habeenka shaqada aan qabto waaye marka mar walba jikada aad ka bixiyso waxa qurux badan jikada nadiif inay ku tahay asxaabteeda quruxda badan siinka marka soo nadiifiyo kadib insha Allah waa arki doontaan sidoo ku soo baxo mar walba insha Allah nadaafada lagu dadaalo ilmaha koritaanka muhiim u tahay in jadwalka cunada ay ku saxan tahay mar walba cunuga jadwalkiisa ay ku saxan tahay mar walba cunuga caafimaad qabo ku noqdaa cunug si qurux badan u koro noqdaa inta caruur naga xanuunsan Ilaahay noo caafiyo inta haysan caruur Ilaahay ha siiyo intayna haysatan Allah noo barakeeyo insha Allah wax walba jecelnahay Allah na siiyo bishii xurmada lagu jiro asxaabteeda quruxda badan isku soo duceeno inta dhimatay Allah u naxariisto
inta noolna dhammaanteen allah noo wada naxariisto dhammaan jikada markaa soo hagaajisas quruxda may kusoo baxda asxaabteeda quruxda badan insha allah muuqaalka inta haddaa soo gaartay waa kaa mahad celinaa sida quruxda badan videoga usoo daabatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu